Xarragiyo xishood, diin iyo markaasi dhaqan, farqiga nolosha muslimiinta reer Madrid ee Chelsea ee Karim Benzema iyo N'Golo Kante. Inkastoo qof walba og yahay kala duwanaanshaha qaab ciyaareedka xiddigaha muslimiinta ee Real Madrid iyo Chelsea, Karim Benzema iyo N'Golo Kante waxaana warbixinteena ku eegi doonaa farqiga u dhexeeya qaab nololeedka iyo sida xiddigahan ay u kala duwan yihiin. Karim Benzema oo da'diisu tahay 35 jir wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or waxaana toddobaadkii mushaar ahaan Real Madrid kaga qaataa lacag lagu qiyaasay 278 kun oo ginni. Waxaa ninkan uu asagoo markaasi ku jira waqti raaxa iyo tamashlayn. N'Golo Kante wuxuu ku guuleystay koob adduun waana 32 jir, toddobaadkiina wuxuu mushaar ahaan Chelsea kaga qaataa 290 kun oo ginni. Kahor inta aan si kafool ah labada kooxood ee Real Madrid iyo Chelsea iskaga hor imaan lugta labaad wareegga sidamaadka tartanka UEFA Champions League, waxaa markaasi isbarbardhig dhinac walba ama dhowr dhinac aan markaasi ku eegi doonaa xiddigaha muslimiinta ee Karim Benzema iyo N'Golo Kante qaabka kala duwanaanshaha noloshooda. Ka bilaabana baabuurtooda labadan ciyaartoy aad ayay u kala duwan yihiin, waxayna ku kharash gareeyeen lacag aan isku dhoweyn marka cadad ahaan loo eego. Benzema waxa uu leeyahay baabuur markaasi tiro badan oo ku xaragoodo, waxaana uu ku bixiyay lacag lagu qiyaasay ilaa iyo 6 milyan oo ginni. Baabuurkii ugu dambeeyay ee la arko isagoo wata wuxuu markaasi ku kharash gareeyay ninkani 160 kun oo ginni, waxaase kaga horreeyay sanadkii 2011 baabuur oo soo iibsaday oo 2.5 milyan oo ginni lacag lagu qiyaasay ninkan oo asagoo kala soo baxay. N'Golo Kante wuxuu aad kaga duwan yahay Karim Benzema marka loo eego baabuurta iyo markaasi sida ay u wataan. Muddo dheer waxa uu watay baabuurkii uu ku iibsaday celis ama gacan labaad oo noociisu yahay Mini Cooper, waxa uuna siistay 20 kun oo ginni. Waxaa baabuurka markaasi iibsaday waqti uu joogay kooxda kubadda cagta La City, laakiin waxaa la sheegay in sanad ka hor uu gatay baabuur kale oo qiimihiisu yahay 200 kun oo ginni, inkastoo weli lagu arko isagoo wata baabuurkiisi yar oo dadku markaa ay isagoo ku mahadsadaan. Xarragada iyo dukaameysiga. Marka ay noqoto xarragada iyo dukaameysiga, Kante wuxuu iibsadaa dharka talooyinka ee la naqshadeeyay, waxaana inta badan soo xitaa dharka tababarka iyo ciyaaraha oo lagu arko isagoo suuqyada ku maraya. Sanadkii 2018 wuxuu N'Golo Kante ka qayb galay arooska Cesc Fabregas iyo xaaskiisa Daniela Semaun oo ka dhacay jasiiradda Ibiza, isagoo ku labisan surwaal gaaban iyo shaati caddaan ah. Benzema gebi ahaanba waa uu ka duwan yahay N'Golo Kante dhinaca labiska marka loo eego. Bishii November wuxuu ka qayb galay xafladii Ballon d'Or ee ku guuleystay isagoo xiran dhar qaali ah, wuxuuna markaas uu ku labistay heesaagii Mareykanka ahaa ee Tupac Shakur xafladii abaalmarinta muusiga ee sanadkii 1996. Waxay ahaayeen dhar aad u qaali ah, waxaana u dheereed saacad qiimaheedu markaasi aad u sarreeyo oo nooceedu uu yahay Richard Mille. Marka ay noqoto dukaameysiga, Kante wuxuu markaasi tagaa meheradaha yaryar ee laga dukaansado, inta badanna waxa uu la macaamilaa meherada la yiraahdo Asda, taleefanadooda gacanta iyo mobilkooda. Kai Havertz ayaa dhawaan sheegay in N'Golo Kante uu ilaa hadda wato ama isticmaalo mobil uu iibsaday 10 sano ka hor, taasoo ay ku jiraan sawirro ciyaartoy waqti hore ka fariistay kubadda cagta ama xiddiga ay xilli hore isku dambeysay. Waxa uu Kai Havertz sheegay inay Kante kaga mahadsadaan sawirrada foosha xun ee taleefankaas lagu qaaday maadaama aanu lahayn kaamirooyinka casriga ah ee hadda wataan taleefanada qaaliga ah. Benzema wuu ka duwan yahay, wuxuuna markaasi isticmaalaa iPhone Gold oo asaga markaas si gaar ah loogu shaqadeeyay oo magaciisu dhabarka kaga yaalo, waxaana la sheegay in kaga baxday lacag lagu qiyaasay 3 kun oo ginni. Fasaxyadooda marka la yimaado, Karim Benzema wuxuu fasaxyada markaasi gaar ahaan xagaaga ku qaataa meelo qurux badan oo uu ku soo nasto, waxaana markaasi qaataa diyaarad khaas ah oo uu ku tago meelo ay ka mid yihiin jasiiradda Ibiza iyo si lamid ah Los Angeles. Waxaa dalxiisyada markaasi si joogto ah oo la socodsiiyaa 69 milyan oo qof oo ku xidhan bartiisa bulshada Instagram-ka, halka uu mararka qaarkoodna qaato dooni oo badda kula dalxiiso. N'Golo Kante uu ka duwan yahay Karim Benzema, wuxuuna inta badan uu xilliyada fasaxa ku qaataa gurigiisa. Mar uu ka hadlayay muuqaal ay duubtay shirkadda ee Chelsea garankeeda xayeysiiso ee la yiraahdo Trivago, waxa uu Kante u sheegay waqtiyada fasaxa anigu meel nooma baxo oo gurigayga ayaan ku qaataa. Haddaba KS leedahay wanaagsan yahay N'Golo Kante iyo Karim Benzema.